سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta waxaan u mahadnaqayaa allaha noo fudeydiyey inuu isku midkeena noo maaragtay noo dhaco waxa maxay ahayd inagu mahadnaqayaa ninka mar labaad inaad ka soo ajiibtaan invitationkii aan nii soo bandhignay communityga reer Djibouti maxay ahayd maanta waxa sharaf noo ah anagu reer Djibouti communityga reer Djibouti ee ku nool wadanka gobolka Maine in maaragtay sheekh Abdulrahman Sulaiman Bashir sheekh adeerkay waana aabahay at the same time aan ku soo dhaweynaynaa Maine waxaan garanay in maaragtay community leaderska oo Soomaalida inaan waqti u la qaato sheekhu taariif uma baahno waa qani yani taariif laakiin xoogaa in yaro kooban ayaan niga sheekeyn marxaladii tacliintiisa macadka islaamka ee Djibouti uu ka soo baxay Sacuudiga uu ka soo bartay wax Suudaan maxay ahayd Yemen Djibouti wuxuu ka soo qabtay shaqooyin kala duwan oo wuxuu ahaa maxay ahayd la taliyo wuxuu ahaa wasaaradda cadaaladda director buu ka ahaa wasaaradda waqfiga kutub badan buu qoray saa wada ogtiin waa mufakir weeyaan hadda wuxuu ku nool yahay Canada dalkood magaalada gobolka Ottawa ee caasimadda Canada insha Allah waxaan u maxay ahayd uga sii soconaynaa barnaamijka insha Allah taariif yar oo insha Allah 5 minute oo qof walba insha Allah uu taariifinayo wuxuu qabto iyo magaciisa insha Allah midigtaan insha Allah ka bilaabana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Cabdiqaadir Maxamed Nagey waxaan ka mid ahay bulshada Lewiston degan iyo Urban Bar waxaan u shaqeeyaa hay'ad samafal ah la yiraahdo magaceeda Maine Immigrant and Refugee Services aaskeedii ayaan ka mid ahaa 2008 ilaa dhaxdan ayaan u shaqeeyaa insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الله waxaan deganahay magaalada Lewiston waxaan ka mid ahay hay'adda Maine Community Integrations MCI. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Xamse Cabdi waxaan ahay reer Djibouti gobolkan Maine ku nool waxaan ka shaqeeyaa Beit College jaamacadda Beit College ayaan ka ahay maamul ku xigeen xafiiska u xil saaran maaragtay cilaaqaadka ay jaamacaddu la leedahay wixii dibadda ay la leedahay iyo student leadership programska ardayda maaragtay leadershipka maaragtay la baro in dhowr sanana halkan baan deganahay. السلام عليكم. magacayga waa Ayaale Mahdi Cali waxaan yahay ummadda reer Djibouti baan nahay waxaan ka shaqeeyaa Beit College inta badan farsamo gacanta ka shaqeeyaa dadba farmaaso siinaa. magacaygu waa Xasan waxaan ka shaqeeyaa DSP iyo asma ka shaqeeyaa dhinacna iskoo baan dhigtaa shaqeeyaa kana Lewiston ay shaqaalo oo shaqeysa ciidanka immigrant ama refugee-ga development stability
ها bulshada la shaqeynaa badanka immigrant iyo magaciiba noo sheeg New Wales Public Health Mission. magaca السلام عليكم magacayga waa Nimco Barkad waxaan ahay gabar Soomaaliyada oo Ethiopia waxaan ahay case manager waxaan ka shaqeeyaa sidii bulshada immigrant-ka noloshooda wax loogu gudbiyo magacayga waa yuusuf waxaan deganahay Portland waxaan ka shaqeeyaa arrimaha bulshada waxaana ka mid ahay Portland School Board member aygu waxaa weeye Axmed Shucayb Yuusuf oo dadku Shucayb u yaqaanaan reer Portland baan ahay waxaan joogaa masaajidda Al-Huda la yidhaahdo oo Portland ku yaala Islamic Society of Portland president ka ahay waxaan kaloo rangarayaa hay'ad non-profit organization oo East Africa dadka ka caawisa director ka ahay waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi Axmed waxaan maamule iskuul dugsi sare ka ahay magaalada Portland Maine oo aan deganahay Deering High School la yidhaahdo jaamacadda USM tane adjunct professor ka ahay. Assalamu waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa waaye Maxamed Cabdiqaadir Iimaan membership waxaa ka maxaa la yidhaahdaa Islamic Society of Portland Maine macallin quraan noo ah insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعيقي وجامع محمد وحنا هاي صومالي كينيا مرايكان صوماليان كل شيء كينيا كو يرب باري مرايكان وانكو نولي for the last 17 years and إن شاء الله تعالى وحن لشقيا أمان كشقيا هيئات أن كميدا هاي أساسيالك لدهو مقعيدا من Immigrant and Refugee Services وحن هاي maamulaha guud ee dhalinyarada iyo qoyska. Alaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Saalax Abdulsamad Maxamuud runtii waxaan joogaa masaajidka Islamic Center kulli dhammaan dadka waan isgaranay laakiin hadda markay rag istaariifinayeen rag badan baan hadda shaqooyinka ayaan bartay awal maan ogeyn marka aniga shaqadayda waxaan u maleynayaa maartay waa meeshaas insha Allah taala aad baan ugu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Sadiiq Xasan Yuusuf dadka masaajidka jooga horjoogiisaan ka mid ahay. عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد علي محمود وحانا كميد أهي مساجد كالآي إسلامك سنتر معلمين تا إيو قدقة إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله مقعي وأحمد يمني كولومبوس أوهايو وحانا سكرتير أيانا داعينا وآه إن شاء الله. أنا قلنا مقعي وحسن فارح جيدي هاي waxaan ahay shaqadaydu waxaan ka shaqeeyaa staff senior staff accountant baan ka yahay state of Maine hay'adda American Community Empowerment Project-na waxaan ka yahay CEO iyo co-founder waa xagga nala jooga Xamze waa co-founderkii maaragtay Daseb isagaan isla asaasnay waa kaas هذا إن شاء الله يمكن واحد سننا كلمة الشيخ إن شاء الله فليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. مع horta farxadii ah inaan isbarano ka badan mujtamac madani waxa loo yaqaano civil society-ga ah bulshada rayidka Soomaali lagu dhaho iyo tacliintii dacwadii mujtamacii oo dhan ragii hor joogay inaan isbarano iyo haweenkiiba gabdhihii insha allah diinteenu waxa weeye ina almuslimiina walmuslimaat wey marka hablaha in lailoomaha iyo hablihiiba insha allah ana farano ku faraxsanahay insha allah jazaakum allah khayran waxaan kale oon aad ugu faraxsanahay saaxiibkii axmed feerka sheekhayna halkaas ku imano oon ku kulanno alxamdulilah jazaahu allah khayran inaan ini barto oo dad maaragtay dacwadda u jooga oo sheekh iyo ugu horeeyaan iyo kuwa kaleba aan barto aad baan ugu faraxsanahay jazaakum allahu khayran waxaan jecelahay bas inaan laba kelmadood iska dhaho waqti badan ma hayno kelmadda koowaad waxa weeye dowr ruwaad dadka hogaamiyaasha ah dowrka ay nolosha ku leeyihiin
iyadoo kooban waxa weeye nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina araa'ida laa yakdibu ahlahu ninka dadkiisa hor joogayay dadkiisa beenuma sheego ninka oo maaragtay u sahay taga dadkana oo soo eega meelaha loo guurayo dadkiisa beenuma sheego marka mujtamaceennan waktigii inaan dhaafno caatifada lagu shaqaynayey oo aan galno waktigii caqliga lagu shaqaynayey marxalatu alcaatifa inaan ka baxno oo marxalatu alcaqli aan galno caqligu markaa laba shay buu inagu qasbayaa awalan inaan diraasaad samayno haddiito oon odhano bulshadeennu maxay u baahan tahay america shimaaliya diraasaad cilmi ah inaan samayno oo research maaragtay scientific science ah arrinta labaad waxaan u baahan nahay xuluul inaan soo qadimno waqtigii solutionka weeyaan in badan baa sidaa ha la yeelo waa la yidhi waa la yeeli waayey laakiin sida in la yeelo ah in dadka loo sheego oo la qadimo waxay la tahay marxaladda marxalat alcaqli weeyaan cilmiyana waxaa la gaadhay almujtamacaat alcaatifiya intixaar baa ku dhaca intixaarku waxa weeyaan maxaa dhahdaa afka ingiliishka susan way isdilaan mujtamaceedna soomaaliga 30 sano intixaar ku jira libiya way bilowday intixaarka suuriya waata ku jirta mujtamac islaami ahaaya غير islaami ahaaya hadduu mujtamac caatifi yahay yantaxir daatiyan mujtamacaadka caqlaaniga oo maankooga maalaya oo diintooda ku dhaqano oo dhaqankooga ku dhaqano waxaa dhahdaa waa mujtamacaad tanmiya iyo nadj bay sameeyaan habeen dhowt waxaan akrinayay mustaqbalka 4 dowladood iiraan israa'iil iyo turkiga iyo sacuudiga waxaa sameeyey diraasaadka maraykanka sameeyey jaamacadda maraykanka harvard baa ka mid a waxaa leeyahay mujtamacaadkan mustaqbalkoogu siduu noqon doonaa baciid can siyaasa ideolojiyaadku waa been waxay sheegaan waa hadrajadan iyo waxan iyo laakiin si cilmi ah waxaa leeyahay israa'iil 30 sano hadday dhaafto way ficlaan karaysaa waxaa ku meersan marka la eego iiraan waxaa yidhi 3 sinooraheed baa sugaya qarax infijaar dhexdooda ka dhaca wadaadada lagu kaco wadaadadan shiicada ah 2 inay dadka sunnaha dagaalkan ay ku hayaan sunno intuu midoobo uu weerar ku qaado 2 iyo in caqli la yimaadiin ay badbaadaan oo rafsanjani fikrad uu lahaan jiray la qaato turkiga waxay yidhaahdeen haddii la helo generation erdogan bedeli kara uu badbaadaya haddii kaletase towrad cilmaaniya ka dhici doonta say ku qoreen wayaan sacuudiga waxay yidhahdeen 2 sinooraheed baa sugaya sinooraheed furfura tafkiik inuu furfurmo shiico iyo sunno loo kala baxo iyo qabaa'il 2 in ay boqortooyadu istajdiidiso oo ay soo ceshato hubiyaddeedii oo fikraddii weli maxaa odayga odhan jiray maxaa wasiir daakhili naayef fikraddii naayef alyad alqaasiya walyad alxaaniya jirta gacan adag oo dadka lagu hayo iyo gacan fudud oo culummada iyo wadaadada iyo saxwada iyo lala saaxiibo oo waddanka lagu wado labadii dib la iskugu dhiso uu badbaadi kara laakiin fikraddan MBS maxamed salmaan way baabiin doontaa sacuudiga marka wuxuu yidhi ninka markay buugga qori waxay dhahdeen mujtamacaadkaasi waxay leedahay gaarka leeyihin waxaa ka mid ah mujtamacaad caatifiya intooda ugu badan marka laga reeba iiraan iyo turkiga israa'iil caatifa lagu asaasay caatifadiina way qabowday iminka way ka qabowday caatifadii weyneed lagu asaasay marka anaka mujtamacaadkeena soomaaliga waxaan ku jirna mujtamacaadka caatifiga caatifa ayaan haysaa caatifadu 3 meelood baa ka arkaa والله يا عي واحد محاكمتي في الصومالية قبستي ولو جوري سوبين شعب قدم وان جورناهد أنا كنت من هؤلاء الذين فرحوا بهذا هذا أنا وفشلنتي وفشل بقى وحنوي مدي محمد محوها فرماجو يلي وحن يكتب يعني قحرنا وان كان عاطفتنا كعاطفة وحكلو جرتا تزحزح مر مصر آدينا إمك تركيا ولا تغني تركيا وحنا قصة ما قررنا سوري وانا كي بدو جوجيني دبي وانا كي تغني دارها يبسني وعاطفة مش غير عقل معها qof inoo yidhi war turkiga waa lagu noolaan karaa waa diraaso noo kari mahay
in aan masar tagno bandhig waxaa dhegeysanayay abu talxa oo ka warramaya sheekh xafidahullah oo isma bardhigaya turkiga iyo masar diraaso fiican bahayd inkastoo cilmina ka dhiga baahan laakiin bal fiican bahayd sacuud turkiga ku fiican yahay maxay masarna ku fiicanta ciyaalkiina maxaa u fiican ma turkiga u fiican mise masar ba u fiican waxaan sidhi waa bidaaya jayida abu talxa soo bandhigay fikrad fiican marka anu waxaan rabaa inaan ugu baraarujiyo insha allah de waan yaacayna waqti badan maskaxdu inay waqti badan isla qaatay idan horjootiin qalni buu qaadano isla egno laakiin de maskaxdii intaa baa la siiyey marka insha allah way garaan noqonaysiin waan yaacaynaa de raggii waxaan gaadhaynaa salaada maqrib insha allah jazaakum allah khayr mahadsantihiin aniga markaa de waxaan ka soo koobay xabad kale oo fiican oo isleeyahay soomaali dadkii ugu fiican tahay mushkiladda labaad waxa weeye mushkiladdan la yidhaahdo dadka soomaaliga jawiga soomaalinimada haddii nagu guulaysan karayo iyak uun isla joogaan han ka saarno dadka kale hala joogaan carabta han baranno dadka fiican turkida han baranno ummadaha kale han baranno isla joog waxba ma kala qaadanayno geli jirkiin baa sarkay mugtahay waa annakii un wuxuu nooma kala beerayaan laakiin dadka kale han baran anu fikraddaasaan qabaa inaan duurjoog noqon oo keligeen meel joogin badan han baranno khibrado kala helaynaa hataa maaragtay anagu waxbaan ku fiicannahay dadku naga qaateen iyakuna waxba bay naga fiican yihiin marka yamantoo kale waxaan arkay generationkii saddexaad afraad baa jooga weli waa yamani kulla shay waa yamani ala socaa waxba kama baabi'in diyaarad baan wada raacnay baris baan ka raacnado yamaniya ilaa sarcan ku soconnay ciyaalkii baa la jooga isaga wuxuu ihi aabbahay baa yaman tagay waa professor jaamacad dhiga ciyaalkiisii waxay u labisan yihiin yamanta waa sii sheekaysanayna waxay ku hadlayaan lahjaddii gobolka laga hadlaya xadramiyintii xadaarima ayay ku hadlayaan waxay dhegeysan qur-aankii bay xafisan yihiin way sheekeynayaan odaygu waa professor jaamacadda dhiga oo weyn oo dhakhtara nin kaloo mar aan la kulmo yamaniya jaamacad maray ka dhigay dhakhtar weyn buu ahaa 80 jir buu ahaa waxaan sancaan isugu imi jirnay maraan diraasa ka sameynay guri qol baan wada deganayn ninkaasi wuxuu yidhi waxaan ka tagay cadan anigoo 35 jira ingiriis 80 baan ahay ciyaalkayga kuwa sii dhaleen baa jooga kuwan awooga wahay baa sii dhalay wuxuu yidhi kulluhum yamaniyuun fi amriika dhammaantood waa yamaniyiin amerika ku nool maadaa cindahum inaan diraaso ku waxayna soo maha ninkan wuxuu ii sheegay xamza wuxuu ii sheegay inay gabadhi doctora ku qaadatay maaha soomaali reer jabuuti say u fikiraan tacliinta gabadhii shaqadii markii la siinayay afrika loo diray diraaso fiican bay samaysay dadka weliba meen jooga iyo diraaso ku samaysay walidaalika safar alxawaali oo dakar wuxuu oran jiray rafaka allah asrahu qalbad cajiib wuxuu oran jiray yadrusuunana xata nuqaac ay galbeedku weyna diraasiyeen la dhuuxa wayacrifuunana kama yacrifuuna abnaahum si fiican una yaqaanaan annaguna inaan wax diraasiyno intaas waan igu diray insha allah jazaakum allah khayr yaraal noqdo insha allah dhalinyartu maadaama hadda dadkan leaders ay yihiin oo dhalinyaro badan ta'tiiri ku sameeyaan dhalinyartii Soomaaliya si general waxbarashada mid wadankan waa taqasud waa land of opportunity waaye qof walba jaanis waa haystaa dhinaca waxbarashada weli waxaan dhalinyartu ku xiran tahay qof kasta markaa weydiisid wuxuu ku leeyahay wiilashiin wuxuu barnaa laba major keliya either medical ama engineering gabdhihii 90% gabdhihii Soomaalida maxaa waaye neersina ah okay marka fikraddaas sidee lagu bedeli karaa maadaama dadka meeshan joogo dad ay leaders ay yihiin oo loo baahan yahay dhow ta'tiir in lagu sameeyo fikraddaas maxay kula tahay ma fikrad la bedeli kara ma tahay oo على الأقل generation soo socota ma laga bedeli karaa runtii أول مرة oo arka waaye Soomaali oo Minnesota markaan ka soo tago meel badan tagi oo dawladda saan ugu jiraan marka reer Djibouti waxa uu maleynaa xadaarada iyo dawladnimada xoogo inay naga horumarsiin Soomaalida kale Soomaali badan waa la kulmay hadda intiinaan arkay waa organization jaamaco kulli meel oo case workers dhinaca Soomaalida oo bidaat waa aad inuu yar tahay Minnesota xoogo yar hadda naga baxsan dhinaca dawladda lama dhaxgelin
ardaydiina weli laba major keliya ku xiran yihiin marka arrintaas maxaa nasiixa noogu soo jeedi lahayd maadaama dadkii wejiga ay yihiin dhalinyarta sameyn lahaa insha allah baaraka allah fiik waxaa jira horta waa su-aal fiican oo muhiim laba waxay xasuuseen mulaaxado almulaaxada aluulaa waxa weeye waxaa la idhaahdaa ninka sheekh baaberi wuxuu la kulmay ducaad ilaa iyo 200 oo meel bay ku samaysanayeen maaragtay ay ku qaadanayeen duruus ducaadii qarbiga waa 30 sano ka hor laakiin waan akhriyay marka wuxuu ku yidhi maxaad samaysay maxaad diyaarisiin 90% waxay diyaarinayeen masaa'il cilmiya batrool wixii khariijka yimiday waxay diyaarinayeen dhakhtarnimo injineernimo qadiya cilmiya diyaarinayeen scientific wuxuu yaa diyaarinaya culum insaaniya yaa diyaarinaya dhakhtar maxaa jira economical maxaa dhahdaa bulshada siyaasadda cilmiga nafsiga in yar baa gacmaha taagtay wuxuu yidhi waxaad ogaatiin buu yidhi waxaad diyaarinaysiin technical waxaad ahaan doontiin kuwa la hogaaminayo laakiin ma noqonaysiin kuwa wax hogaamiya marka islaamiyiin baan naho ducaad baan naho waxbaan badilaynaa dhakhtarana waan ahaanina waxba ma qabanayso marka waxaan xasuustay qadiyadii markii mursi uu madaxa noqday mursi madaxa noqday jamaacadan uu mursi ka tirsan yahay qowmiyadda dhado dabaqada koowaad iyo dabaqada labaad dhaqdaro iyo dhajinaro oday loo oran jiray xasan haykalo cilmaani wuxuu yidhi ikhwaanul muslimiinka masar jooga way ka duwan yihiin islaamiinta turkiga jooga ma xukumi karayaan masar ma xukumi kareen waa dhaqtaro yidhi marka dhaqtari dad buu daweynaysaa mid weyn iyo tiknoloji taasi marka waa turkiga dee daawud oqla ka mid ah oo culum siyaasiya bartay waxaa ka mid ah gool oo bartay culum maaragtay siyaasiya waxaa ka mid ah odayga iminka xakuma erdogan oo dhaqaalo bartay kaana dhaqaalo bartay wadaadna bartay waliba wadaadna ahaa erdogan waa sheekh oo kasoo baxay kulliyatu ilahiyaad kasoo baxay kulliyatu shariica oo kale kulliyatu usul diin kasoo baxay imaam buu ahaa miskiid ka leadership marka wuxuu yidhi taas mid kale sheekh kale wuxuu ku yidhi waxaan aad ka shaqaynaysiin waa sax laakiin rag dhakhtaro barto marka dambe culum insaaniya aadaa jira oo barta amba si kale barta marka aniga waxay ila tahay in tawaasuga taasi umata malxuuda labaad waxa weeyaan markii xamar baa maldho ka sheekaysanay 75 dhakhtarada muqdisho jooga waa la garanaya waa 5 qof hebel la tirnaya annaka Djibouti oo kale wixii ku horeeyay 2000 aan naqaan dhakhtarada 4 bay ahayd marka maskaxdeena marka tagay nin cad baan daweynay oo mustawa ahaa dhakhtarkii noo soo baxayna mustawa hayb ahaa islaan kasta waxa ka fikiraysaa inuu nakeegu noqdo dhakhtarkii hayga ahaa daweynay dadka marka madaxiina dhakhtar saaka meelaan kalnay 3 ciyaar walaalaha ma tago maxaa doonaysaa dhakhtar adoona dhakhtar saddexdiina waa dhakhtar laba bilaabeen ba saddexaadna ku socdaa marka ninkan ila socdo maxamed carab sheekh uu la sheekaysto mid baa yidhi aabba jecel ma jecel anugu dhakhtarada ma jeceli aabba jecel marka ikan u noqonaya dhakhtar marka taasi waa mushkilo weeyaan meeshan waxaan u baahannahay qiyaadaad leadership marka dadkeenu inay baahan ta'siirka inaan barano iclaamka oo kale warbaahinta in la barto iclaamku waa muhiim waxaan la yidhaahdo maaragtay xataa leadership waa cilmi la barto in la barto oo halkaa loo aado meeshaa loo aado muhiim weeyaan marka sida dadka maskaxdooda u bedilaa waa inaan qofka weydiin waxaa jira diraasaad la sameeyo marka ardayga la yahay jaamacadaha maraykanka 60 baa laga bilaabay waxaa la weydiiyey maxaad doonaysaa mustaqbalka qora way qoreen ko waxaa la weydiiyey risaalad iyaa leh mission iyaa hadaf leh iyaa vision leh ko laba waxaa la weydiiyey iyaa u qoran tahay waxaasi qortay ciyaalku jaamacadda iminka bilaabeen boqolkiiba waxaa ka jawaabtay 3 wixii oo dhan bacda waxaa la baaraa 5 sano dadkii halkii tageen waxay ku dhammaadeen boqolkiiba 3 oo hogaamiyaal intii waxba qori weydaan ba iska qortayna waa la hogaamiyaal marka maraykanka ku nooshihiin maaragtay dadka dariiqa socday xumoogo boqolkiiba 3 baa xoog goosada xagee fadhiyaan dee waa inaan doodoono qaar hol fadhiyaan qaar waxay fadhiyaan maaragtay maalkii bay gacanta ku hayaan dhaqaalii bay hayaan cilmigii bay hayaan meelaan arkiin bay joogaan waxaa loo yaqaanaa dulul camiiqa dulul camiiqana waxay ka dhan tahay waa hogaamiyaal waa qiyaadaad marka anigu waxaan idhahdaa waxaan ka fikiro inaan anagu haddaan mujtamac soomaaliya mujtamac usoo nahay inaan sameyno mujtamac camiiq haddaan dul camiiqa samayn karin
mujtamaca gunta dheer le oo hogaamiyayaal hoosta inoo fadhiyo oo odayaal oo noo fikiro oo xilada yaab kale wax odaygan Kissinger la dhalo Mareykanka waa 90kiiba afka la galaya ilaa maanta khudadka Amerika lagu xukumay isaga qoro planning isaga qoro soo qoraa mar baa la qaadaa isaga 4 qof waxa la geeyaa jasiirada kulliin Scandinavia waxa soo dajiya 30 sano soo socota wala faaruqiya marka haddii tujaarteena iyo maalqabeenadeena iyo imaamiyadeena iyo sheekhiyadeena iyo meheena aan toba qof intaan doorno war 3 bilood baan faaruqinay maxay cunaysiina waa taa ciyaalkiina waxay cunayna waa ka hay madaxan xafuujiyo oo wax keena laakiin qof aan subax markuu baxay nolol doodo dad soo fikir muxuu ka fikiri soo maqal qisadii ninkii ardayga Abi Xaniife subax saantu soo gashay khadimadii ka tiriya imaam نفذت الدقيق قولوا بلا دقيق قولوا حمطة واحد ما طلع كريم ما يالو قاتلك الله أخرجت من رأسي 40 مسألة أفرت المسألة ضد ما ضحك كسرت يقول لأنه قف كانوا فكري ومضوا فكري 40 مسألة وفقي ودجيني وعوق فكري عيال كبار باهي هيسا وعوق فكري عواتكي ما كان ما ضان وداد نرش لقى قلنا إنه سوليش نوكا وداد نرش لقى قلنا يا با صبح بوسوكا يا رزاق وتهيأ يا كيلا كادو كل شيء ما سمينا مو سمين دي يجز والله طايا لا تجيب ولا طايا مرقا ما لك تفرغي ودري بحق قرن زكدينا المتفرق للعلم ولا سيني زكدا المتفرق للعباده ولا سيني زكدا حلو سين متفرق للعباده دنت سوق شقينا العباده كانوا محوف متفرق مقضي دونتي ومدار وإنا عقلي جينا سي استراتيجي وبدل جزاكم الله خير بو برنامج شو جينا سؤال مهم على بعض فاد baa ku jirta macallimiin baa ku jirta waxay ka yimaadeen kala duwan Kenya ka yimaadeen Soomaaliya ka yimaadeen ka yimaadeen marka xiriir kama dhaxeeyo macallimiinta xufaada imaamka iyo kuwa kulliyada haysta kuwa dawladda ku jira marka sidoo suuragal bulshada si loo badbaadiyo kuwaas isku xirnaan karaan xilliyo waqtigoona waan garanaya هذا إنه حلو يوم ذي حلو يعني وملحد تذكروا قال يدونه وين يرى كونفرنس كجوجا يا كأمريكا كجوجا يا كجوجا كينيا يا كجوجا مارتي كندا ويستوطن ما طبعا كشكرنا وحنشك قلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي هني وحضرك أسبوعنا النبي محمد القاضي أسبوعنا الصحابة ولا قال كذا أسبوعنا 10 الله يستر كذا رضي الله عنه والله شقينا يا مركب محايس كحر يكا هدف بس كحر دم بس كحر ده أنا بس أفهم وينو أدوق مركب قرآن دقي يسيد وكان قرآن دقي يو العلاقة لهين عبت وانا كمان عبت أنا كبحنا ويا الآن وقرن يجي كله تناد وحنا كنا ضحينا نجرا مركب إن شاء الله شيخين ونيجوا غسار صالح سكين ماذا إن شاء الله وكسفونا وحقيقة معناه وحاول هل هذا له حرب عينا ودروا من اللي له دكتور مصري باير أرضي والصومالي والقاهرة إلى الدجناء وجامعة الدول العربية معهد السياسة دجان هي هذا حجوا موتش جامعة كلية موضع أي وحكي لقابل مرة هذا يركب مركز أرضي ماشي ماستر بديارنا إذا عدنا وكشغين شري غيب الصومالي إذا عدا مصر مركز جمع حكدها هي معناها جامعة دي لأن حسن مبارك بوضح حدي ومركو مدة مرة هي أول هردي مكتهي مقالة الأحد بدجناء معناها بس كأثر عضو markuu xusn maray meesha maray baskaas ku xanibaysaa hours ilaa uu jidku dhaafo marka saas ahaan jirtay waxa caadano ahaan jirtay marka aniga gurigan iyo iga tagay marka baskii baa raacay uu ku xanimay jidku ku xanimay markuu baskii 2 saac kadib la sii daayay meeshii macadkii buu tagay galaaskii waxoogaa de xiisada uu ka dib dhacay markuu galay hal hadal professorkii wuxuu ku yiri wariyaha maxamed maxaa ku dhacay wiil maxamed deeq waa la oran jiray ninka maxamed deeq maxaa ku dhacay wiil wuxuu yiri niyo xusn mubaarak baa jidka maray oo xidhay saas darteed jidkan ku xanimay iska fariisu yiri haduu macnaha hal hadal marka hadalka way hadalka aan rabay inaan sheego caadifada Soomaalida wuxuu yiri hadii idinku Soomaali hadaa tihiin buu yiri Soomaali hadaa tihiin intuu jid xidhaba umina sugteen buu yiri hal hadal weyn macnaha dulqaadka nin jid xidhay macnaha waxa way aad macnaha uu ku xidhaba madaxweyne oo maartay aad iska xidho hadana sii maartay iska maro shacabka la sii daayo
shacabka masaarida marka waa shacab culus markii hadda dhibku dhacay xusn maartay ninka ridayna dadkii maartay waxa weeyaan waxay ogolaadeen in la dilo la xiro xabadna aysan qaadanin oo isrideen leana dalkii badbaadiyeen marka horta sheekh khayr Allah ku siiyo aad iyo aad caadifadaas iyadaa wayna baabiisay arrintaas haddaan usoo noqdo Lewiston sheekh waxa weeye dib u ka yimid waxaan isku daynay inaan isu keenno waxaan ku bixinay kharash badan kulan badan waxaan oo dhan maartay dhibaatada meeshan ka jirto oo dhan hal madallad inaan u sameeyno way fadhiyaan ragga maartay ragga madaxda ahaa ee community-ga shirarka ka qayb galay waxa weeyaan way fashilantay marka mar iyo laba ma aha marka fashilku markuu dhaco maartay sidii ay noqotaad ku hogaaminaysa marka haddii sheekhu uu cusbaa isaga dib ka yimid marka dhacdooyin badan baa ka horreeyey qoraallo badan baa jiray rag baan maamul u samayn waxna uu fashil muhiimadda waxaa weeyaan insha allahu tacaala waanan lama daala laa taqantu min raxmatillah waan samaynana sheekh axmed insha allah adigana maarta insha allah waxaa tahay ragga maarta insha allahu tacaala hogaamin doona baaraka allah insha allah sheekhu hadda Portland buu u socdaa uu kelimad ka jeedin doonaa cidiinii faraaqaha haysato insha allah Portland masaajidka bilaal insha allah sheekhu wuxuu nala joogaa beri oo isniina salaasada insha allah ayuu noqon doonaa Minnesota waan ugu mahadnaqayaa again السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس